aniga oo waxbarashadeeda iska dhigta oo aad iyo aad ugu dadaala ayaa mar kaliyaata waxbarashadii layga saaray. waxaa laygu amray inaan shaqo tago amba aan reerka usoo shaqeeyo ayaa laygu amray. maalintii arrinkaa laygu yidhi aad iyo aad ayaan u murugooday. qisadani waa qiso cajiiba asxaabteeda qaaliga ah. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada qisadan. inta aan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalayga qaaligaan jeclahay soo dhawaada. walaashin ismo channelkaad iga daawanaysaana waa ismo channel. waxaan idin leeyahay gacanfuran kusoo dhawaada meel kastoo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan. waan idinku mahadnaqayaa sida quruxda badan leh mar walba aad ila socotaan. waanad ku mahadsantihiin. mahadnaqinina halkan kuma soo koobi karo runtii. waxaan soo dhaweynayaa asxaabta channelkayga kusoo biirtay amaba kusoo biiraysa. waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacan furan. channelku waa channelkeena. asxaabta cusub waxaan si sharaf leh aan uga codsanayaa inay subscribe ii saarto gambaleelkana ay furato. aad bay u mahadsan yihiin asxaabta nala joogayna. waxaan leeyahay nala si jooga. channelku waa channelkeeni. waxaa kaloo aad iga daawanaysaan page-ka aan ku leenahay Facebook ay ku qoran tahay istaahil. iyagana waxaan idiga codsanayaa inaad page-kaas follow aad ii saartaan, like-ta iyo share-tana insha Allah aad noogu qabataan. maanta markaa maxaan idiin wadaa? maanta waxaan idiin wadaa qiso cajiiba. qisadeena intaynan gudagelin waxaan idin leeyahay muuqaalka sii like gareeya siina share gareeya. runtii qisooyin cajiiba ayaan insha Allah channelka aan kusoo bandhigi doonaa. qisadan qiso kale ayay nooga horeysay. qisadan laakiin waa qiso aad iyo aad u cajiiba. marka insha Allah waan bilaabaynaa. waxaan idin leeyahay muuqaalka si aad u fahantaan bilow ilaa dhammaad insha Allah dhamaysta. qisadan waxay la soo wadaagtay gabar Soomaaliyeed oo iga codsatay in aan magaceega aan qariyo. halkay qisadani ka dhacdayna runtii waxa weeyaan dalkeenan waxa weeyaan Soomaaliya qayb ka mid ah, meel ka mid ah, inagoo meeshaana sheegi doonin ayaan insha Allah meel ka mid ah weeyaan. gabadhan magaceeda waxaan u bixinaynaa Faadumo. Faadumo markay dhalatay isla markay dhalatay waxaa geeriyootay hooyadeed ayaa umul aroortay. Faadumo waxaa soo korsatay ayeedeed aabbo ayaa soo korisay. Faadumo markay 7 sano ay ahayd iskuulkana galaaska koowaad ay dhiganayso waxaa geeriyootay ayeedeed. kadibna aabaheed waxa uu guursaday isla markay dhimatay hooyadeed 2 sano kadib ayuu guursaday gabar kale. kadib waxay tahay markii ayeedeed dhimatay ayaa wuxuu aabahay ii keenay ayaday ayuu ii keenay. waxay tiri ayaday waxay iila dhaqantay si xun ayay iila dhaqantay isla markii la ii keenayba. waxay tiri waxaan haabay tiri inan yaroo ayeedeed soo koorisay oo soo barbaarisay oo waxay tiri dhaqan fiican ku soo kordhisay. waxay tiri handagaay iyo hanjabaad ana ayeedeed igumay soo korin. isla markii ayada la ii keenay waxay tiri waxay igu bilowday weji xun ayay igu soo dhaweysay, hanjabaad leh oo waxay tiri aad iyo aad ayay ii dhibaateyn jirtay. markii qisadan ay ka sheekeynaysay Faadumo aad ayay u murugsanayd. markay ii sheegaysay qisadan aniga isma ahaan aad ayay u murugsanayd. kadib waxay tiri marka sidii ahayd ayaa waxaa dhacday markuu aabahay guriga joogo. waxay tiri ayaday si fiican ayay iila dhaqmi jirtay oo aabahay ayay istusi jirtay. isla marka guriga uu ka baxana weji kale ayay ii yeelin jirtay. iskuulka galaaskii 2aad ayaa noqday, sanadkii 8aadna waxay tiri waan ku jiray. kadibna waxay tiri waxay sidii ahaataba aabahay ayaa isna xanuunsaday. marka gurigii soo jiibsaday waxay tiri dhaqankeygii ay qarqarin jirtay sida ila dhaqanto markii isugu joogo ayaa waxay tiri weji kale ayay yeelatay. markii dambe aabahayna kamay baqan jirin. waxay tiri sidii xumeyd ay ila dhaqmi jirtay ayay banaanka wada keentay. ayada waxay tiri mid waxay ahayd ubad aan dhalin laakiin imika waxay tiri markaan la joogay ayay waxay umushay inaan bishii u horeysay ayaan la joogay. waxay tiri iyadoo xaamilo ah ayaan u imid. intaas sano may dhalin, 5 sano may dhalin, aabahay wada joogeen. waxay tiri inantii u horeysay ayaa u dhalatay. kadib waxay tiri aabahay ayaa waxay tiri xanuunka ku sii siyaaday, dhulku u dhacay. kadibna mar walba aabahay iyadu way isku qaylin jireen. wuxuu ku oran jiray bay tiri inantan yar sidan aad ula dhaqmayso ka bedel. waxay tiri iyadana mid hadalka wax ku qaata may ahayn. waxay tiri way ku sii hanaaqi jirtay.
kadibna waxay tiri anigu markii dambe waxaan noqday bay tiri mid murugo la nool oo marmar iska ciishoota oo iska oyda oo meelaha iska fadhiisata waxay sidii ahaata waxay tiri aabahay waa uu geeriyooday ma uu dhintay aad waxay tiri ayaan u naxay habdhaqankii waxay tiri aayaday way sidii ay la dhaqmi jirtay way kasii badisayba dhaqankii dhaqan xun ayay la soo baxday isla markuu aabahay dhintay waxay tiri uu mootanaa 2 biloodba iskuulkii ayay iga saartay anoo ku jira oo bartanlaha imika sii dhammaynaya ayaa waxay tiri eedaday iskuulkii iga saartay waxay igu tiri bay tiri waxaad noqonaysaa tuur reerkan usoo shaqaysa xaafad ayaan kuu shaqo geynayaa amba maqaaxiyaha ayaan kuu shaqo geynayaa kadib waxay tiri inoo soo shaqay aniga ilmaha yar baan haystaa waxay tiri ma bixi karo ayay igu tiri bay tiri aad ayaan u naxay bay tiri waxaan ahaa bay tiri mid shaqada amba waxbarashada aad u jecel shaqana waxay tiri waxba kamaan arag oo ilmo yar baan ahaa marka waxay tiri 9 jir ayaan ahaa kadib waxbarashadii ayay gebi ahaanba iska saartay adna min awood la ilmo yar baan ahaa awood lana maan hayn waxbarashadii way iga saartay inan ayay ii geysay waxay tiri guri ayay ku tiri ka shaqee weelka waxay ilmo yar sabiyaan ahaa waxay tiri weelkii waxaas mooyaan wax kale maan qaban jirin gabadhii ayaa waxay tiri lacag yar ay siin jirtay iyada ayay lambarkeeda ugu shubi jirtay waxay sidii ahaataba waxay tiri inan weyn baan noqday ilaa waxay tiri 12 jir ayaan gaadhay eedada waxay tiri lacagtan aniga waa ima arkayso waxay tiri inaan waxba qaban karin ilmo yar baan ahaa waxay tiri wax danba igama laha iskuulkii ayaa waxay markaa iga saartay waan idin soo sheega dhaafay marka 2 bilood aan u shaqeynay inantii ayaan iskuulkay ku noqday maamulaha iskuulka ayaa waxaan ka codsaday inaan waxbarashadayda aan sii wato aayadayna aanu ii sheegin oo si qarsoodiya wax iigu baro aniguna waxay tiri waxaan ahaa mid kartideeda leh oo maxanaha shaqadana ka shaqeyn karta waxbarashadeena soo dhigan karta waxay sidii ahaataba waxay tiri maalimaha ka mid ah ayay eedaday ii yeedha igu tiri soo fadhiisa halkan waxbaan kuu sheegayaay aad ayaan u naxay bay tiri waxaan is dhibay tiri malaha waxbarashadaadii ayay soo maqashay aad anoo naxsan ayaan soo ag fadhiistay kadibna waxay ugu tiri bay tiri eedo shaqo fiican ilaa shaqay ka soo aragtay bay tiri facebooka laga xayeysiinayo oo shaqadan ka lacag badan eedada waxay tiri lacag aniga ma arkaysay lacagtan umay arkaysaa bay tiri shaqadii ayay facebook xayeysiin bay ku aragtay shaqanin doonaya ayay waxay tiri facebook xayeysiintiisa ka aragtay ilaa waxaas ay ugu yeedhisay aniguna waxaan isleeyahay bay tiri malaha waxay soo aragtay waxbarashadaadii bay kaala hadlaysaa waxay tiri waan soo fadhiistay waxay ugu tiri bay tiri shaqadan aad ka shaqayso waad ka tegaysaa shaqo ka fiican ayaan kuu soo helay waxay tiri sidaas weeye waxay tiri aad ayaan u naxay waan yaabay waxaan ku dhigtay shaqadu maxay ahayd shaqadan shaqo ka fiican oo ka lacag badan ayaan kuu soo helay lacagta waxay tiri awalba lacagteeda in yarna waxba kamaan arki jirin waxay aad mid xitaa cuntada ay siinayso lisa lacagna haba sheegin lacagna waxay tiri gacanta bay may saari jirin lacagba markaa waxay tiri damba kama lihi iyaduna waxay tiri lacagta ayay ku imaan laadahay waxay tiri maalmaha ka mid ayay kaxaysay waxay ii geysay bay tiri nin malaqabeen ah oo waxay tiri shaqo doonayay ayay facebook ka aragtay laakiin waxay tiri aan aragtina waxay tiri ninkaa ma garanaysa laakiin facebook may ka maqashay nin malaqabeena ayaa shaqo doonaya shaqaduna waa shaqo masaxaada weeyaan oo shaqadiisa ah kadib waxay tiri halkaan iska raacnay baska ayaan raacnay qisadan ismeel Soomaaliya ka dhacday kadib waxay tiri baska ayaan raacnay waxaan galnay bay tiri shaqadiisii oo fooq ahayd ayaan wiishkii waxay tiri fuulnay inagoo wiishkii ku jirna ayaa waxay tiri waxaan la saarnaa nin dheer oo muraayad mid u xidhan ayaan la saarnaa waxay ugu tiri bay tiri edo lebis ay boorso ku siiyay tii qalsooniyo waxay iska siin jirtay ayay ugu tiri lebistan marso oo isqurxi si uu ninku shaqo fiican uu kuu siiyo shaqada boos fiican uu kaa siiyo dad badan buu imanaya xayeysiinta la daawaday markaas uu kuu qaato adiga markaaba isii qurxi bay ugu tiri maya baan ku dhigtay mid waxay tiri aad mar walba u murugoosan iska ciishoosan baan haabay tiri waxaan ku dhibay tiri maya lebis ma marsanaya dad sidaa aan ahay aanu shaqo igu siinaynin ma doonay baan ku dhibay tiri waxay ugu tiri bay tiri ilaahayow ninkaas nin indhalaba ka dhig hadda lebis sii diiday ilaahay nin indhala ka dhig adigu foolxumadaada waxaan ka baqayaa inuu mar dad u gashaba kuraa iga baxa anna waxaan ku dhibay tiri haddii sidaa ay tahay yuuna shaqaba ay siini ilaa ninku waxay tiri anigu maba ogine waba nin indhalaba ninku
ila nin banu ban indhalaba ninka nala saarana wiishka waxay tiri ninku uu garanayaa way tiri nin shaqo doon inuu yahay isaga aan u soconay inuu fahansay anaguna ma garanayno halkii ayaan waxay tiri qosolnay ay qosashay anaan ku qoslay ilaahay baa ka dhiga halkan ku dhibay markii dambana kadib shaqadii ayaanu galnay waxay tiri kuraastii ayaanu xafiiska hortiisa fadhiisanay dadka waxay tiri kala horeeyay sidii waxay tiri loo kala horeeyay ayaa loo kala socday magacantana laga qoray markii magacayga la soo gaadhay ayaan anugu kacay waxay tiri xafiiskii ayaanu galay ninkii kadib wuxuu ugu warbay tiri isla ninkii waxay tiri aan ku soo arkay wiishka waan naxay tiri kursigan soo fadhiso kursi agtiisa yaalay ayaan soo fadhiistay wuxuu ugu warbay tiri gacantaydii waxay tiri ayuu saa u soo laacay gacantaydii ayay saa u qabtay bay tiri waxaan ku dhigay isiida gacantaydii ayaan saa uga qaabsaday kadib waxay tiri wajigayga ayuu gacanta sidaa iiga mariyay waxay tiri waan booday waxaan ku dhigay waa maxay dhaqan xumadani sodiga ninka weyn ah ayaan ku warbay tiri miyaad arkeen ina yar baan ahay iga daa dhaqankan markaas waxay saan uga booday wuxuu guri soo fadhiiso shaqo miyaan doonaynin waxaan ku wari waan doonayaa laakiin dhaqankan waxay dhaqan xumadan aad ila timid wuxuu ugu warbay tiri maanta adigu shaqada ugu horeysid hablo badan baa kaa soo horeeyay sidaas ma la dhaqmay waxay tiri waan booday waxaan ku dhigay shaqada iska hayso albaabkan ka baxay eedaday waxay tiri halkan kursi ii fadhida waxaan ku waxay ugu tiri maasha Allah eedo shaqadii ma ku siiyay ninkii iyo markay ugu tiri iyo lacagtan ay ku imaan lahayd bay tiri waxaan ku warbay tiri maya waan iskaga soo baxan waa nin dhaqan xun ayaan ku warbay tiri waxay ugu tiri maya kama tegisid halkan ee waynu joogaynaa ninka anaa kula hadlaya ana waan diiday waxay tiri waan ka baxay dibadii baan u baxay kadib waxay tiri iga daba timid waxay ugu tiri shaqadan weeyeen ina dhaafin waa shaqo lacag badan edo ninka uma shaqaynaysid ninkan u shaqaynayaa baan ku tiri ninka waa nin dhaqan xun shaqadiisa ma doono waxay ugu tiri anaa kaaga soo dhamaynaya iska dhaaf anaa kaaga soo dhamaynaya kadib anigoo murugsan ayaan waxay tiri halkii ka baxnay sidii ayaan waxay tiri guriga ku tagnay ilaa waxay tiri isla markiiba anigoon arkayn ayay la hadashay bay tiri gabadh shaqadana ka shaqaysa ayaa waxay tiri markii aan fadhiyo gudaha ku jira ayay isku arkeen meesha gabadhii bay la hadashay gabadhii bay tiri nooga soo dhamay shaqada annagu waxay tiri halka gudihii fadhinaa ayaa isla markii telefoonkeedii loogu soo jawaabay waxaana waxay tiri wuu ku yiri gabadhaas beri toolaha soo shaqo tagto ayaa lagu yiri bay tiri waxay tiri waa ii timid waxay ugu tiri beri toole shaqadii maanta aad ka timid oo ku soo dhameeyay beri toole ayaad howlgelaysaa waxay tiri aad ayaan u naxay bay tiri waxa iiga dhigneed bay tiri anigoo oo lay toogtay oo kale ayay iiga dhigneed bay tiri ma ninkii anigoo markii u horreeyay aan u galay waxay tiri dhaqanka iila yimid ayaan ka fikiray bay tiri ayaad u shaqo tagaysaa day dhimatayba ayaan sidhi bay tiri waan naxay waxaan ku leeyahay eedo ninka meel niga days may waa lacag badan iyadoo lacag umay ka sheekartaa bay tiri waad u shaqo tagaysaa asxaabi qisadan waa qisa aad u dheer qayb kale ayaan insha Allah kasoo samayn doonaa video ku xiga ayaan kasii wadi doonaa waxaan idin leeyahay muuqaalka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka sii share gareeya siina like gareeya asxaabtiin la sii share gareeya wixii farin ahna commentiga insha Allah igula wadaaga page-kana insha Allah follow soo dhaha istaale ku qoran tahay aad baad mahadsantihiin intaan muuqaalka xiga insha Allah iska iman doono waxaan idinka tagay sidaa ay kulanti dambe xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh